رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله. كتاب العلم qaybtii maqaasidii waxaynu ka soo gudubnay kitaabka 10% baynu dhamaynay laba week inagoo wadnay waa 800 xaashiyood buu haado 180 baynu maraynaa safxada maca waxaynu ka bilaabaynaa 83 marka maqsadkii hore dhamaaday aqeedada sidaas aanay tahay oo waxa uu muhiimsan in la bartaa waa aqeedada waxa soo raacaya cilmiga halka lagu hayaa waxa weeyaan cilmiga sharciga ama cilmiga samaawiga ee waxyiga ah ee quraanka iyo xadiidku ay asal u yihiin runtii culumta kale adduunyadu hadafka laga leeyahay waxay u badan tahay in adduunyo lagu helo laakiin cilmigan ilaahay baa lagu baranaya subxaanahu wa tacaala caqiidadii iyo cibaadadii iyo camalkiiba uu kugu hagaagaya سعادة الدارين بالو هليا لبانتا الدنيا آخرة بركا علمنا ما أنت له هدية شير وكاوي العلم الممدوح بكل حال بالي وعلمك مرة والبقى ما أنت له وعلمك سماوية إن لبرتانا المركا لبدي سقيوات لا فرض العين كي فرض الكفاية وأقسام تسينا فرض العين وعلمك قفل بل أقول له إنه برتو waxyaabaha waajibaadku kaga ansaxayaan ma la yatimu alwaajibu illa bihi fa huwa waajib cibaadaadkii caqiidadiisii camalka wixii uu xaraan kaga fursanayay meeshuu ka shaqaynayo waxa soo dhan cilmiga uu ku saxayo saxiix iyo faasidkiyo uu ku kala garanayo baadilkii iyo faasidka uu ku kala garanayo waa laga maarmaan inuu bartaa waa cayni kan kale funuuntan caamka ah culimada qaybin la helaa walaga maarmaana fardul kifaaya noqonaysa fadligiisa iyo fadliga ehelka macna cilmigan samaawiga fadligiisa aad buu farabadan yahay quraanka iyo ahadiis bariba way xusayaan iyo dadka ku hawlan ee baranaya haday tahay muallimka iyo hadii ay tahay qofka mutaallimka ah ee baranaya labadaba qul hal yastawi alladheena ya'lamuna wal ladheena la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab وادرك أقوانت إيا أركتيدا دير اسكو درسداي markay cilmiga samaawiga helaan cilmiga samaawiga barashadi faa'iidooyin badan bay leedahay culimada qaarkood waxay tilmaameen inuu kaba fadli badan yahay sunnayaasha soomka iyo salaada iyo tasbiixda iyo dhikriga cilmiga barashadiisa ka fadli badan leeyahay waa nafcigiisu ama dheeftiisu waa mutaaddi macnaheedu qofkii caalimka ahaa umad badan buu wax u faa'iideynaya halka qofka cibaadeysanaya de naftiisa uu waafacayo lidalik bay fuqahadu ku tageen qofka cilmiga sharciga baranaya in sakadii la siin karo laakiin qofkii iska cibaadeysanayay la oranayo si kaco shaqayso oo aan sakadii la siinayn Imam an-Nawawi rahimahullah wuxuu la ittafaqa jama'atu salaf ala anna al-inshiqala bil ilmi ash-shar'i afdal min al-ibadat min an-nawafil kas-salati was-sawmi wat-tasbih سلفنا الصالح قيبوا ذكر الدوانا وحيث لا وافقين عبادوين كسنها عبادة علمية متعددة أيا كفضل بدن واحد فايدوين كيس كمذا وعلامة الخير قفكوا إنه يهاي خير كيس مذو بدنيا إلى هاي وخير للضوني وحا علامة علمية السماوية الدين جاينو برانيا سيدا وتلمام يا حديث ورسولك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفكوا إلى هاي خير للضوني دين تبو فهم سياء وبرتاه سواء كنا رغمية فايدوين كيسا وحا كمدا علميا النبي محمد عليه الصلاة والسلام والشيء كليه إلهي ورب ويديسين وكو كرديو لما أوران أواد يا أدويو يا أواد مدنوا وقل رب زدني علما كليه وحا إلهي وروحاد إلهي بردين وكو كرديو علمي مركا وحا دركيسا وحي وفضل لغا بدناين ويهي علمك فائدوين كيسا كميتا أن فيه الرفعة في الدارين الدنيا آخرة وككر نغضا قف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أقوياهنكم مؤمنين تكلوا كسيس الرأيان
waxa faa'iidooyinkiisa kamida waa sababaha u muhiimsan ee jannada lagu galo qofku ku camal falayo man salaka dariiqan yaltamisu fiiha cilma sahala allahu lahu dariiqan ila aljanna qofku haddii uu markaa isaga oo kitaabkii ama muxaadaradii ama cilmigii soo dhagaysanaya soconaya mar walba waxaa loo sahlayaa sababteediina u hayaa waddadu ku geli lahaa jannada cilmiga dabcan dee muxaadaraad baynu ka duubnayoo iyo mabaaxidka ku saabsan laakiin intani waa in yaro hordhaca unoo baraarujina waxaa intaasii raaci lahaa cilmiga ma aha weynaantu inay dadka ka joojiso oo qofku markuu da gaadho ama xoogaa uu 20 iyo 30 dul maro dhalinyaro cuslaatay markuu noqdo inuu cilmiga barashadiisii iska daayo ama isagoo odaya maaha waayo cibaadada lama daayo waa cibaada cilmigu wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin cilmiga waa lagu koraa lagama koro qaacidada qaata cilmiga waa lagu koraa lagama koro waayo maalin walba markaad masalo kororsato khibradaada iyo caqligaaga labadaba cilmiga aad kororsanaysaa kor u qaadayo kobcinaya waa qalad inuu qofku yidhaahdo PhD holder baane ama shahaadaan soo qato anugu meelaha hoose ku saqajaami maayo cirka la iga soo hindhisayoo warkaygu wuu tiirsay inaad tiraa waa qalad axmed ibnu xambal raximahullah markuu weynaaday beela ayaa niman caami arkeen isagoo weli tawaadi iyo khad qalinkiis daba sida oo weli mooxun baad qoraysaa bay idhaah miyaanad weynaanin madhabkaagii oo la qoraybe wuxuu ihi min almaxbarati ila almaqbara anugu markaan tawaada iyo qalinka aan isgelinaya aan ka tagaa waa marka xabaasha aan tegaya uun labadan kama weynaanaya buui weli qalinqooyinkaasaan ahaanaya buui madhab kasta ha layga qoreen waxaa jira nabaadij ama tusaalayaal ay soo qaataan culimadu had iyo jeer markay qofka ku dhiiri gelinayaan inuu weynaanta ku baran kara cilmiga culimada waxaa jirta la odhan jiray aladiina tacalamuu alcilma fi lkibar iyagoo waaweyn ayaa aqoonta diinta barteen waxaa ka mid ahaa imaamkii weynaa daahiriga ahaa ibnu xasam ee andalusiga ahaa ee caanka ah ee dee madhabta daahiriyada ragga ka muuqda ah isagoo 26 jira buu bilaabay ardaynimada cilmiga fadeexad ku timi baana sababtay inuu ficiltamo oo uu ku ficiltamo cilmiga barashadiisa wuxuu ihi casar baan soo fadhiistay masjidka mee masjid baan imid anigoo ka qayb galay jinaasad la qaadayo waan iska fadhiistay ardaydii baa wada eego waxaa la waar kacdee lama fadhiistee taxiyatulmasjid baa la tukadaa salaad la yidhaahdo waabaan yaabay siday igu qayliyeenoo waan istaago waan tukaday buuli markii jinaasadii laga soo noqday ee lasoo aasay baa la yimi masaajidkii waxaan isiri de waa kuwii kolkii hore ku canaantay iminka ha iska fadhiisanine ma labadii ragcadood tuko markaan xidhay bay idhaa waar kadaa haddaayo lama tukadee muxuu ahaa kanina xagu ka yimi war casarka dabadiisa salaad lama tukado cadha ay qabato waxaan idhi buuhi oo waxaad kala garan laadahay salaadaa sunnaha goortii la tukanaya iyo goortii aan la tukanayn maalintaasuu bilaabay cilmigii 30 sannadood oo isku xidhiidhsan buu waday markaa dalabulcilmi kadibna wuxuu u baxay munaadaradii iyo inuu cilmigii raggii la dhigo ou la doodo waxaa ka mid ahaa ragga cizudiin ibnu cabdisalaam caalimka loo yaqaana imaamkaa weyn ee suldaanulculamaa loo yaqaanay hormuudka culimmadu ahaa waxa uu ahaa isaga laftiisu nin weyn oo daadiisu aanay yarayn geedaha haddaanu ka weynayn kama yarayn waxa uu iska ahaa nin faqiira oo aan fursad u helin inuu wixii wax ku barto soo urursado dimashq masaajidkeedu seexan jiray dabadda ayuu seexan jiray albaabada la xidhi jiray goobtuna waa qaboo dee waa ardu shaam wuu isku jinaaboodo maydhi baa ku waajibay barkadii buu ka soo maydho uu isku shubay haddana mar labaad bay jinaabadii ku timi jinaabadii iyo dhaxanta badanina dee way isku xidhiidhsan yihin dhallinyarada garanayse haddana mar labaad buu ku celiyey qisooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu mar saddexaad ku celiyey dabeedna koomaabuu galayba barafkiibaa wadnaha ku dhufan gaadhay oo u suuxay ilaa dugsiga loola cararay markii dambe nin baa la hadlay oo wuxuu idhi cizudiinow alcilma qabla alcamal war waxaan kuu sheegi lahaa cilmi baro waad camal falaysa waad iska cibaadaysanaysaa une aljahlu yaqtulu saaxibah jahligu qofkii saaxiibkiisa wuu dilaaye intaana dhiman cilmiga baro tii baa dhiirigelin u noqoto dee ilaa uu culimmada hormuudkoodii noqday
suldaanulculamaa magacaasuu la baxay waa dhaqaajiyey waxaa ka mid ahaa raggaas ninka la odhan jiray kisaa-i isaga laftiisu isagoo nin weyna ayaa wuxuu u yimi qolo ahlulfadli ah oo aqoon-yahanoo culimo ah oo meel fadhiya bal kuwan iskala fadhiisa buuhi mudduu soo socdayoo wuu soo daalo markaasaa wuxuu uhi laqad acyaytu wallaahi waan soo daalay buu u jeedaa markaa dabeetana waxay idhahaan war raggan hala fadhiisanin adigoo laxnigan ku hadlaya laxni baad ku hadlaysa waa maxaa laxniya buui dee haddii aad soo socotay inaad tidhaahdaabay ahayd cayaytu buu ihi cafwan inaad acyaytu tidhaahdaaba ahayd bay dhahaan haddii aad xagga socodka ka hadlayso haddii awooddaada hadal iyo fikir iyo waxa aad ka hadlaysana waxaa la yidhaahdaa buuhi cayaytu baa la yidhaha laakiin taadan oo kale iminka acyaytu baa loo isticmaalaa marka dee kala baraaf carabigaoo dee iska hagaaji ragga waaweyn markaad la fadhido laysmana amaahin jirine dee qofka si loo dhiiriyo waa loo dhiibi jiray bartiibuu ka dhaqaajiyo cilmiga naxwaha la yidhaahdo qaalal kisaa-iyibuu ku dambeeyey inaad maajicda waaweyn ku aragto kisaa-i wuxuu yidhi waxaa ka mid ahaa tusaalaha afraadan imaamkii weynaa madhabta shaaficiyada qafaal la odhan jiray qafaal ashaashi wa qafaal almarwasi baa jiray alkabiir wasagiir labadaba qafaal baa loodhan jiray fuqahada shaaficiyada ahaayeene ka sagiirka ayuu ahaa ninkaasi wuxuu samayn jiray qufulada sidaa magaciisaba ka muuqata facaalka qufuladu samayn jiray nin kalea qufulada samayn jiray isaguna oo cilmi leh marka waxaa loo sheegay inuu ninkii cilmiga lahaa qafaal la odhan jiray shaashi inuu sameeyey quful yaroo casriga aada u wanaagsan ma sidaasuu yeelay buu yidhio isna wuu farsamadiibuu sidan jaynuhu uga koobigareeyo galbeedka ayuu isna farsamadii dib ugu noqday oo qufulkiisii aada uga sii yar oo wanaagsan buu sameeyey laakiin kii weynaayo ninkaasi lahaa cilmiga leh ayuunbaa shaqeeyoo socda maalintii dambuu niman la fadhiyey buu ku yidhi cajaa'ib war waxaan calafka la ydhaha waa cajiib bal kaygaasaa ka yar oo ka fudud oo ka qurux badan oo suuqiisu ma wanaagsana ninkaa suuqiisuna waa xaami isagoo kiisaas igaba liita markaa nin baa la hadlayoo waxau ku yihi inama dikru bilcilmi laa bilaqfaal waxaan kuu sheegi lahay buui adeer qofka caanbixiisa uu cilmigu ku xidhan yahay qufulla kuma xidhna ma sidaasaa buui haddaba anaguna qufulka aan cilmiga ku dara buui halkaasuu ka dhaqaajiyey marka afartaa tusaale inagu filan marka ragga isdhiibaya ee odhanaya kolley anigu daadaan gaadhay waxma baran karayo waa nooc dacfiya iyo cajsiya waxaa loo baahan yahay sida asxaabtuba ahan ridwaanullaahi calayhim qofku inuu talqiin sameeyo oo qur-aanka iyo tajwiidkiisa uu saxo oo cilmiga barashadiisa qaybihiisa kala duwan mid walba uu dhex galo 5 sano hadduu saa ku wado khalaas iyo tabaxar wax badan buu qofku kororsanaya inahaas muqadam ahaan noogu filan iyo dhiirigelin qofbana inuu qof macaanka markaad aragto laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaad aragto adiga wax kuu kordhay iyo waxa aad rawxaani ahaan iyo aqoon ahaanba helayso walaalahaaga kalena inaad dee cilmiga ugu yeedhaaba wanaagsan laa yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun lakum nacam iyadoo aynu mar walba xusuusnaanayna cilmigu qiimaha wuxuu leeyahay haddii camal raaco haddii aan camal raacinna cuqubu noqdaa baab alfiq fi ddiin diintoo la fahmo sirta cilmiga samaawigaana inaad garato barato dhaqanka raaciso can mucaawiyata qaala wuxu uhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul rasuulki ilaahay waxaan maqlay isagoo leh man yurid illaahu bihi khayran qofku ilaahay khayr la doono yufaqihhu fi ddiin diinta ayuu fahamsiiyaa yucallimu ma odhanayo yufaqihu baa layihi waxa weeyaan waa qofka oo fahma oo garta sirta shareecada iyo diinta ilaahay u keeno maslaxadda ah wa inamaa ana qaasim wallaahu yucطi waxa uu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa inamaa ana qaasim anugu waxaan ahay kii qaybinayay maxay qaybinaya cilmiga wallaahu yucطi ilaahay baana bixiye cilmiga ilaahay baa bixiyo ii soo dhiibay aniguna dadkaan u qaybinaya ama culimada qaarkood waxay ku macneeyaan wainamaa ana qaasim anigu cilmigaan qaybinaya wallaahu yucdii lilfahm ilaahayna fahmigu bixiyaa oo dadka cilmiga qaatay ayaa uu qof u dhaadhacayaa oo u daadegayaa in yaroo kooban oo uu ku naqlinaya caalam ku noqonaya qofna maba fahmayo ama wax badan faa'iideyn kari maayo rasuulkuna waxa uu lahaa sala allahu calayhi wasalam faruba mubalagin
awcaa min saamic waxa badan qof la gaadhsiiyo kii gaadhsiiyeyba uga aqoon badanaya walan tazaala haadihi اlumma ummaddani kama suulaysa ama ma waayeysa qaa'imatan calaa amri اllaah inay diinta ilaahay ku taagan tahay laa yaduruhum man khaalafahum cidda weydaarataana dhibi mayso xataa yaأtiya amru اllah ilaa ilaahay arrinkiisuu yimaado oo guusha iyo gobonnimada uu siinayo awliyadiisa iyo nasriga baabu fadli اlcilmi waاtacliim cilmiga iyo barashadiisu fadliga ay leedahay ama baridiisa dha tacliim can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala waxa uu yidhi mahalu maa shay tusaalihiisu wuxuu ka dhigan yahay bacahanii allaahu ilaahay uu igu soo diray bihi isaga min alhudaa waalcilm hanuunka iyo cilmiga ilaahay uu igu soo diray hanuunka iyo cilmiga ilaahay soo dhibay tusaalihiisu wuxuu ka dhigan yahay kalgayf ka mahali اlgayf roob oo kale alkaiiri badan roob badan oo soo da-ay asaaba ardan dhul buu helay roobkaasi fa kaana minhaa dhulkaa waxaa ka mida naqiya meel nadiifa dalsan ah dhulkan dalsanka la ydhaa qabilat ilmaaa biyihii bay qabatayoo waa biyo fadhiisin bay leedahay macnaheedu biyahay liqaysa wa ambatat ilkala'a waalcushba alkaiir waxa ay soo saartay daaqii weeye kalow cushbiguna waa doogii daaq iyo doog ama geedihii weeye kalow cushbiguna waa qoyaankii biyihii macnaha doogii qoyaana marka baad iyo doogba uu soo saaray dhulkii wa kaanat minhaa dhulkii waxaa ka mida dhulkan isaga dalsanka ajaadibu meelaha biyaha qabtaa la ydhaa qoloba waxbay u taqaanaan qolada galbeedku waxaa laga yaabaa inay balliyada iyo dhijaamaha iyo u yaqaanaan qolyaha barigana ama hawdkuna harooyinka iyo qaydrada iyo dhulkaa biyaha qabta ayaa ku yaala marka biyihii hoose iyo kuwii sareba waa loo aayay amsakatilmaa waxay qabatay dhulkaasi harooyinkaasi waxay qabteen biyihii fa nafaca allaahu biha annaas ilaahay baa dadkii ku anfacay fa sharibuu way cabbeen wasaqow way waraabsadeen xoolihii wasaracuu beerihii bay beerteen dhulka qayb noocaasa baa jira waa qayb dalsana daaqiyo doog buu soo saarayaa biyihii way ku hakanayaan xaggeeda sarena meel weela bay leedahay oo biyo fadhiisinahoo dhaanka iyo cabitaanka xoolaha iyo jilaalkao dhan ay ku jirayaan lagu intifaacay dad iyo dunyaba wa asaabat minhaa madarkaasi waxa ay heshay samadaasi daa'ifatan ukhraa dhulka qayb labaad baa jirta innamaa hiya qiicaan waa meel biriah waa dhul malsaaya macnaha waa meel shan aynu nidhaahno waa omos ama biyo qabatin ma leh laa tumsiku maaan walaa tumbitu kalaan biyo ma qabanayso biyo way dul marayaan daaqna ma soo saarayso ama bataaxi ha ahaato ama dhulkii aadka u adkaa ha ahaado fadaalika sidan oo kale waxa ah maalu man qof tusaalihii faquha fii diin illaah ilaahay diintiisa fahmay oo ay u dhaadhacday diintu ee qalbigiisa gashay cilmi iyo camal iyo dacwad bay isku daray wanafacahu waxa anfacay maa bacanii allaahu bihi ilaahay wuxuu igu soo saaray facalima wacallama diintii ilaahay soo dhiibay buu bartay dadkiina wuu baray wamaalu ka kalena wamaalu man qof weeye lam yarfac bidalika ra'sa aan madaxaba kor ugu qaaday xagga cilmiga iyo waxyiga samaawigaaba aan eegine daba rooray duunyo lagu xiiqayo walam yaqbal huda allaahi ilaahay hanuunkiisina mu aqbalin alladii ursiltu bihi ee laygu soo diray uma arka hanuunkan inuu xul iyo xal yahay mushkiladda dadka in loo xulay uu xallinayo waxyigu uma arkayaba ee waa qofkaa gafuurka taagaye diinta ilaahay saluugaya markaa tusaalaha wax lagu fahmi karuu bixiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam baabun balliguu canii walow aaya alcilmu altacalumu uma atacliimu uma atabliiq saddexdaasaa istaba socda si xujada cilmigu aynooga hadho waa baranaynaa si cawrada aynoo asturanto waxay culimadu leeyihiin fawaa'idka waxaa ka mid ah dee cilmigan samaawiga cawradii ugu khatarsanayd baad ku qaranaysa oo laba cawraa jiro midna waa tan jirhka midna waa tan ruuxda oo jirhkaaga imika haddii maradu kaa dhacdo dee waa qofkii khajiraad halkii u dambaysay u gaadhaya mudug iyo qawanaan u baxo
hadduu qofku jaahil noqdo wuxuu garan waayana khajilaadta u weyn baa ku dhacda oo inaga ka soo warramayna raggii khajilaaddu ay ku timi ficiltankoodii halka uu gaadhsiiyey cilmiga siday u barteen markaa aqoon la-aanta ama jahrigu cawrada uu leeyahay waa mid runtii ka daran tan jidhka ilaahay baa wuxuu leeyahay wariishan walibaasu taqwa dalika khayr dharka alla ka cabsiga cilmiga waa sabab oo dhar ah cibaadadiiba siday dhar u tahay can cabdillaahi bni camri ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku waxau uhi balliquu canii walow aaya aayadna ha ahaatee iga gaadhsiiya ummadda ammaanadan la ii soo dhiibay waxadithuu can bani israa'iil reer banu israa'iil waa ka warrama waxbaa ka sheegi kartaan walaa xaraja dembina ma jiro waman kadaba calay qofka igu been abuurtaa mutacamidan u kasaya falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu min annaar meeshuu naarta ka fadhiisanayo markaa saddexdaa arrimood buu xadiidku isugu jiraayo midi waxa weeye ammaanadan aynu aqoonta u yeelannay waa inaynu gaadhsiinaa ummadda wa ilaa waxaynu noqonaynaa bakhiilka ugu daran oo duunyada waxa ka daran diinta marka nimankii yuhuudda qur-aanku wuxuu ku eedeeyey bakhaylnimadoodu duunyaduna ma ahayne bakhaylnimada diinta ayay caan ku ahaayeen oo dad bukhalaa bay ahaayeen marka looma baahno qofku hadduu aqoon yeesho an yakuuna zay almaktaba inuu sida maktabadoo kale noqdo maktabadda kutub badan baa ku rasaysan cilmi baa yaalla laakinahaa laa tataxarak ma dhaqdhaqaaqayso marka qofku markuu aqoon yeesho ammaanadaasi waa inuu ehelkeeda gaadhsiiyaa in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha si ay xujadu uga dhacdo aayad buu nebigu soo dhigay calayhi salaatu wasalaam reer banu israa'iil ka warrama dembi ma jiro reer banu israa'iil waxaa laga sheegaa waa saddex arrimood mid diinteennu ay sheegtay inuu sax yahay iyo mid ay sheegtay inuu baatil yahay iyo mid laga aamusay markaa kaa diintu ay sheegtay inuu baatil yahay laga warin maayo dee waaba baatilba waxaasi inaanu xaq ahayn diinteennaaba sheegto waa laga tegaya laakiin wixii sharcigeennu uu sheegay inuu sax yahay waa la sheegi karaa iyo wixii aanu sharcigeennu radiinba iyagana qiso ahaan waa loo qaadan karaa wuxuu rasuulku tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam beenta isaga laga sheegaa inaanay la mid ahayn beenta dadka kale waman kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar nebi maxamed baa yidhi waa daliil weyn shaksi caadiya beenta laga sheego la mid maaha markaa qofkuba hadduu u kaso inuu been ka sheego rasuulka waa ahlu naare halkuu ka fadhiisanaya hasii qorshaystay buu rasuulku baabu ismi lkadibi cala nabiy beenta nebiga lagu been abuurtaa la sheegi dembigeeda can ilmugiirati ibni shucbata radia allahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo yidhi ina kadiban calay beenta laygu been abuurtaa laysa ma ahaanin ka kadibin been calaa axadin qof kale lagu been abuurtay la mid maaha man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar baab aliqtibaaط bilcilm kamashadii ama majeerashadii qofka lagu majeeranayay cilmiga ilaahay uu siiyey ee macalcamalka ah iyo balaaqa ayaa halkana lagu sheegayaayo cilmigu waa wax qofka lagu kamto ama lagu majeerto maadaamuu yahay nicmo ilaahay uu siiyey cilmiga fadligiisaanay ka mid tahay mar haddii la ogolaaday khibdada ama majeerashada cilmiga can cabdillaahi bni mascuudin qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laa xasada ila fi inayn laba arrimood unbaa la ysku xaasidi karaa xasadku waa laba qayboodoo midi waxa weeyaan in aad tamanido ama aada jeclaysato qof nicmo haysta nicmadaasi inay dhaafto ama adigu aada heshid ama isaguba ha waayo midkiina yuu helin taasi waa taceebaysane xune xasadka khatarta badan weeye wa min shari xaasidin idaa xaasad ka labaadna waxa weeye kanuu nebigu sheegayo oo qibta la idhaahdaayo waa qofkaas wanaagaad ku aragto tiri ilaahayow intaa u dah anigana yaa intiisaa in laeg siiya kaa wey laba arrimood baad odhan kartaa ilaahay qofkaa itiisoo kale yaa ku siiya alawal rajulu nin weeye aataahu allahu maalan ilaahay baa xoolo siiyey fasullida waxaa loo sahlay lagu sallidoo lagu diray uun calaa halakatihi
inuu aada ugu bixiyo fi lxaqi xaqa oo markaa siduu ugu bixinayaaba aada u badan ilaa loo arko dadka qaarkood inuu maalkiisii halaagayaba kaasi waxa weeye kii deeqsiga ahaa gacanta furnaa ee lalahaa kadaa reerka u reeb u kaadi warajulunka labaadna waa nin aataahu allahu alxikma ilaahay diin buu siiyey iyo cilmi fa huwa yaqdii biha wa yucallimuha dadkuu ku kala xukumayaa oo uu barayaa marka labadaasiba waxa ay hayaan wax la egyaa ku siiya waa la odhan karaa adiguna sidooda aad u camal fashid marka fadliga ay leeyihiin ayaa halka nabigu ku xusaya calayhi salaatu wasalaam cilmigii markuu camalkaa leeyahay cuudkiina camalkaa uu leeyahay labadiiba wax qiimo badan weeye nicma almaalu saalix lirajuli saalix hadday labadiiba kulmaanna waa dalika fadl اllahi yuutiihi man yashaa baabu tacliim biarxi su'aal in dadkii wax lagu bari karo iyadoo su-aalo loo soo dhigayo oo hababku rasuulku wax ku baraya sala allahu calayhi wasalam ama malaguba wax ku barayay dadka waxaa ka mid a habka su-aalaha oo su-aashu had iyo jeer waxay leedahay waxa la yidhahdaa hanqaltaag dadka tashwiiq waa cishqigelin baa ku jiro oo dadku marka wax la su-aalo anteenadu qofku taagaya u baraarugaya wuxuu isleeyahay tolow maxaad ku jawaabtaa marka isagiioo daydaeyo haabhaabanaya wixii uu ku jawaabi lahaa dareemayna baahida mas'alada ayaa loo dhiibayaa jawaabtii meel bay markaa kaga dhacaysa saa daraaddeed ba hadda nidaamka adduunyada ay gaaladu maaragtay ku faanaan weliba kuwa maraykanku waxaa ka mida bay leeyihin inaan dadka waxuun lagu akhriyine dugsiyada iyo jaamacadahaba kala badh la siiyo ardayda kala badhna mucallinku casharka dhigo oo kala badhkaasi ay noqdaan su-aalo si aanay una seexanin cilmigiina u xiiseeyaan isuna xil saaraan ay wax cusub u baadi doonaan can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam qaala rasuulku waxa uhi ina min ashajari shajara waxaa ka mida dhirta geed marka shajarka horena waa ismu jinsi kan dambena waa mufrad oo ta'du waxyaabo badan bay noqotaa laakiin halkan waa farqan bayna almudakari waاljamci bayna almufradi waاljamci baan leeyahay mufradkii oo kelia iyo jamcii bay kala saaraysa ashajar waxa weeye waa geedkii oo dhan waa jinsigii geedka shajaratan waa geed ka mid a jinsigan dhirta la ydhaha xabadgeedaa ka mid a waa albaqar ina albaqara tashaabaha calayna iyo kale dhirtan geed baa ka mida laa yasqutu waraquha caleenteedu ma dhacdo ku iyo jiilaan wa hiya maalu lmuslim qofka muslimkaana geedkaasi wuu la mid yahay xaguu kala mid yahay muslimku waslad la tuuro maleh geedkanina waslad la tuuro maleh qofka muslimka ahi meeshuu yimaadaba waa wada khayr afkiisa iyo adinkiisa iyo la joogiisa iyo la socodkiisa waa wada khayruun maaha qof dhib lawahoo shariira geedkana waa wada khayr xadiuunii maa hiya rasuulkii su-aashaas uu soo dhigaya imtixaanka bal ii sheega geedkaasi wuxuu yahay buu rasuulku fawaqaca annaasu dadkii waxay ku dhaceen oo la isweydweydiiyo la iswaraystay hal xidhaalaa ka dhacaye fii shajari lbaadiya dhirta baadiyaha ilan beled dheri kuma taalla badaniye waxaa ku yaalla un dee mirimiri bilaadiya wixii la mid ahe baadiyaha xaggeedii baa loo kacay war ma quraca ma maraaga ma kidiga ma kada waa la daydeey wawaqaca fii nafsi annaha nakhla cabdilaahi bni cumar wuxuu leeyay naftayda waxaa ku soo dhacay hargeedkaasi waa geetimireedka oon kama fogeyna iyaga agtooda ka taagan ilaan si kalunbuu u sheegay qaala cabdullaahi baa wuxu uhi fastaxyaytu waaban iska xishooday oo dee waa ka ku odhan doonaa aabbahay iyo adeerkay iyo baa jooga abubakar iyo cumar faqaaluu waxay dhahan yaa rasuula allahi akhbirnaa bihaa way isdiibeena waxay dhahan garan weynaa noo sheeg geedkaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam hiya nakhla waa geed timireedka geedkaa timirtu ka soo baxa oo carabtu way yaqaaneeno min xididka laga bilaabo ilaa jiridda ilaa baarka ilaa gudaha waxa ugu jira waxbaba lama tuuraba mid walba waxbaa laga sameeyey jiriddaa intoo la tumaa liifkii laga dhigaya inta gudaha ku jirta jumaar baa la yidhaahdaa wax xaydhuu leeya waa la calaashadaa laamahan dee mid walba waxaa la saarayaa guryihiibaaba lagu dhisi jirayba oo dushooda la saaraya wax laga tegayaa ma jiro qaala cabdullaahi wuxuu ihi faxadatu abi aabbahay waxaan u warramay cumar bimaa waqaca fii nafsi naftayda waxa ku dhacay iyo inaan u maleeyey ama aan dareemay inay geedkaat faqaala cumar baa waxau ihi laan takuuna qultaha wallaahi inaad sheegi lahayd
axabu ilaya waan ka jeclaan lahaa min an yakuuna lii inuu ii sugnaado kada wakada waxaa iyo waxaa iyo waxaasoo adduunya inaan helo waxaan ka jeclaan lahaa su-aashaa inaad ka jawaabi lahayd oo markaa fadli baynu halkaa inooga soo kordhi lahaa idan markaa cilmiga sheegistiisa lagama xishoodo daawus baa ibnu cabaas baa daawus waxa uu ku yihi ardaygiisi daawus war cilmiga sheegoo socodsii markaasaa wuxuu ihi ma adigoo ila jooga wuxuu ihi miyaana ilaahay fadligiisa ahayn anigoo ku ag jooga haddii aad cilmigii dadka gaadhsiiso in wixii aad qaladana aan kuu saxo wixii aad saxeexdana aan kuu shaabadeeyo on idhaa waa runtii intaasaaba fadli ilaahay ahe fursadda ka faa'idaysoo socotiibu taasina markaa ay tilmaamaysa hababka haalxidhaalaha in lagu socodsiin karo cilmigii oo lagu cishqi gelin karo dadkii wa fii riwaayatin lahuma labada sheekh riwaayo kale ay warinayaan waxay fawaqaca fii nafsi annaha nakhla wara'aytu waxaan arkay abaa bakrin wa cumara laa yatakallamaani aabbahay cumar iyo abubakar oo soo fadhiya oo aan hadlaynin fakarihtu an atakallama marka waxaan karaahiyaystay inaan hadlo waan xishooday baabu ljuluus liistimaaci alcilmi marka waa aadaabtii cilmiga ayaa halkana lagu sheegayaayo cilmigu waxa weeye wax aada u qiimo badanoo waa dhaxalkii ambiyada markaa dhaxalkii aabbaha oo la qaybsanaya haddaad aragta maad dhaafteene dhaxalkii nebi maxamed oo la qaybsanaya haddii aad aragtana ha dhaafi iminka qofka la yidhaahdo adigu iska joog halkan oo maqaaxidaha iska fadhi xoolihii aabbaanu yaro kala diraynaayo qori ninba inbuu qaadanayaa isagoo qaylinayuu soo galaya aniga sidee la iiga reebi karaa buu leeyahy dhaxalkii odayga miyaanu i dhalin oo miyaanu rasuulkaagii ahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam luqadda xoolaha ay fahmayaan dadku abi hurayra kula hadlay maroo si uu xiise geliyuu reer madiine ku dhex dhacay suuqoodiiyo wuxuu leeyahy ma halkanaa fadhidaanoo dhaxalkii nebigana halkanaa lagu qaybsanayaa ma sidaasaa bay yidhaahdeen oo tijaartii madiina masaajkii bay ku soo yaaceen abi hurayrana tilmaam bay yidhaaheen dhaxalkii nebiga halkee lagu hayaa laga soo qaadqaadanaya xalqadii buu tilmaamay wuxuu hi halkan tafsiirkii weeye halkanna waa xadiiskii halkanna iyadoo xalqadiisaa loo fadhfadhiyo dee ragga qaarkood baa qalad ugu dhacayoo xagga kale dabeetana isaga noqdeenayna dee saa uma waad nagu daba rogtay xoolaanu mooday almuhim in cilmigii loo fadhiista dhegaysigiisa laabi laba u leh haddaad adduunyada un laabta ku gurto wax cilmi oo gelayaa ma jiro cilmiga wakhtigiisa la siin maadaamuu cibaadadii joogtada ahaa ka mid yihi can abi waaqid alleythi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam baynamaa huwa jaalis fi lmasjid iyadoo rasuulku wakhtigu masaajidkiisii fadhiyo wاnnaasu macahu asxaabtiisiina way ku urursan yihin id aqbala alaaثatu nafar saddex asxaabi ayaa soo qaabilo halkaa ka soo baxay faaqbala ثnaani laba waxay ku soo beegmeen ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam nebigay kusoo beegmeen si ay xigmadda ka burqanaysa majliskiisan uga qayb galaan wadahaba waaxid midina halkaasuu iska marayoo baylahadiisiibuu iska raadsado suuquu galay qaala markaa waxa uu yihi awigu fawaqafa calaa rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam nebigay isdul taageen labadii meel bay eeganayaan ay ka fadhiistaan majliska fajalasa faama axaduhumaa midkood fara'aa wuxuu arkay furjatan fi lxalqa xalqadii la soo wareejiyey buu meel yaroo bannaan ka helay fajalasa fiiha uu fadhiista wa ama alaakharu kii kale fajalasa khalfahu xagga dambuu isaguna iska fadhiista markay ka buuxsantay wa ama ahaaliu faadbara daahiban kii saddexaadna horay buu kasii dhaqaajiyey falamaa faraqa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu ka baxay wacdigii ayuu faalladan bilaabay taasina waxay ku fiican tahay wacdiga in la isku xidhiidhiyo aan la kala goynin haddii aanay shay adag imanin marka arrintiibuu deris buu ka sameeyey saddexdii nina soo biiray qaala markaa rasuulku waxau hi alaa ukhbirukum ma idinka sheekeeyaa ma idinka warrama can innafari halaa saddexdii qof amaa axaduhum midkood fa awaa ila allah ilaahay buu u hoyday ilaahay buu weydiistay meel uu dego fa aawaahu allah ilaahay baa soo dhoweeyeyoo meeluu xalqadda ka fadhiisto siiyey wa ama alaakharu kii kale fastaxyaa wuu xishooday fastaxya allaahu minhu ilaahayna wuu ka xishooday waa xayaaun yaliiqu bijalaalih ilaahayna wuu ka xishoodayoo
halkaa danbuu iska fadhiistay ninkii wa ama alaakharu kii kale faacrada wuu jeedsadayoo fa acrada allaahu canhu ilaahayna wuu ka sii jeedsaday waa nasiib darro weyn markaa qofkii in si aan u halaagsanin kun caaliman aw mutacaliman addunyaa malcuunatu malcuunu maa fiiha ila dikru اllahi wamaa waalaah aw caalimu wa mutacalim dadkii markaa wax baranayuunbaa ka badbaadi kara balaayada ay adduunyadu leedahay baabu tahabuti min alcilm waxa uu u baab yahay in cilmigii la sugo oo macnaha loo fiirsado loo hubsado oo had iyo jeer sida saxda ah aad ku dadaashoonad ka wahsanin can caaishata waa adaabtii weeye can caaishata zawji الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam annaha kaanat caashi waxay ahayd waa xaaskii nebiga laa tasmacu shay-an may maqli jirin cilmi ama xadiid laa tacrifuhu aanay garanayn xadiid aanay macnihiisa garanayn may maqlaynin ama aayad ilaa raajacat fiihi nebigay kula noqonaysa xataa tacrifahu jeer ay garato may kugu adkaadaha weydaaran waayo halkii unba kuu fadhiyaa ilaa ay isdul taagto sida saxdaa nebigay kula noqon jirtay wa ana nabiya sala allahu calayhi wasalam tusaale baa lagu siinaya waxyaabahay nebiga kula noqotay qaala wuxuu yihi maalin maalmaha ka mida man xuusiba codib qofka aakhiro la xisaabiya waa la cadaabay qaalat caaishatu waxay tidhi si ay u fahamto wuxuu u jeedo faqultu waxaa nebiga ku idhi awalaysa ilaahay miyaanu shan arrinku miyaanu ahan yaquulu allahu tacaala ilaahay miyaanu odhanin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa hadhow baa xisaab fudud la xisaabin doona qofkaa xisaab fudud buu ilaahay sheegay adiguna waxaad sheegtay xisaab oo dham inay adagta cadaabta qaalat markaa waxay tihi faqaala nebigu wuxuu iigu jawaabay inamaa dalika alcard daaliki mu odhan daalika buu hi markaa ka shaksi ahaan bay noqon inamaa daalika alcard kaasi waa bandhig xisaabin maahee waa addoonkii mu'minka ahaa oo ilaahay usoo bandhigaya gafafkiisiio isagoo dadka ka qarinaya saynu kusoo marayna xadiidka xagga hore marka dabeedna dunuubtiisii la tusiyaabuu ilaahay u sheegaya inuu ka dhaafo walaakin man nuuqisha qofka aada loogu xeel dheeraado xisaabtiisa manuuqisha alxisaab qofka xisaabta aada loogu fogeeyo ee lala dhigdhigo ee qofka isagaa dhinac walba laga yimaadaa yahlik waa halaagsamaya marka saasuu ugu fasiray rasuulku sala allahu calayh wasalam aayaddaa tafsiirkeedii kaasuu noqday inaanay xisaab ka hadlaynin xisaabtii caamka ahayde ay tahay uun baraarujin addoonkii lagu baraarujinayo wuxuu galay iyo nicmadii ilaahay uu siiye dembi dhaafka si u garto baabu maa yukrahu min karati su'aal waxaa la sheegayaa halkanna in la karaahiyeystay su-aasha badan oo su-aashiibaa midina karaahiye tahay midina waajib tahay oo xadiidkani kuwa uu sheegayaa waa su-aalaha qayb ka midoo tii aan loo baahnayn laakiin su-aasha loo baahan yahay ilaahay baaba amray in la isweydiiyo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun xadiidkii rasuulkuna wuxua darajadiisa xasanka lagu sheegay alaa sa'aluu inamaa shifaau lcayi su-aal alaa sa'aluu id lam yaclamuu markay garan waayeen may wax su-aalaan buu nebigu uhi inamaa shifaau lcayi su-aal jahliga caafimaadkiisu jahliga waa cudur caafimaadkiisuna waa su-aasha can sacd bni abi waqaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau uhi ina acdama almuslimiina muslimiinta qofka ugu weyn jurman xagga dembiga qofka ugu dembi weyn muslimiinta man qof weeye sa'ala can shayin shay buu weydiiyey lam yuxaram aan la xaaraantinimaynin fa xurima markaasaa xaraam laga dhigay min ajli mas'alati su-aashiisa daraaddeed waa intii tashriicu uu soconayay rasuulku intuu noolaa sala allahu calayhi wasalam haddii uu qof su-aalo su-aal oo su-aashaas sababteeda dadkii wax lagaga xaaraantinimeeyo mashaqu qofkaasi dadka u horseeday su-aashiisaa daraaddeed marka kaasi dhiblow buu noqday laakiin dee intii sharcigu istaagee nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam taxliil iyo taxriim dambe ma jira intii horey ku dhammaatay can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku waxau uhi dacuunii maa taraktukum idaaya intaan idinka tegayo ee anigu aanan waxba idin weydiinaynin ama waxba idiin soo qadimin waxaa u baahan tihiin aniga ayaa idiin sheegi inamaa ahlaka waxa baabi'iyey man kaana qablakum ummadii idinka horreeyey
su'aaluhum waraysigii ay waraysanayeen ambiyada wax weydiinayeen iyo wakhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim iyo nebiyadoodii oo ay isku khilaafeen macnaha isku diideen ma raacaynaa mise waynu khilaafaynaa maxaa laga yeelayaa ambiyadii umay hoggaansamin muran bay kala hor yimaadeen iyo su-aalo waad garanaysaa baqaradii reer banu israa'iiliinta jeer ay ku celiyeen su-aasheeda qisatu lbaqara fii suurati lbaqara faidaa nahaytukum can shayin markaan anigu wax idiin diida buu rasuulku idhahnaa waxaa iska daaya fajtanibuuhu ka durka waidaa amartukum biamrin markaan wax idin faran idhaa waxaa la yimaadana faatuu minhu waxaa kala timaadaan ma stadactum intaa kartaan nebi maxamed saasuu yihi calayhi salaatu wasalaam markaa su-aashii tacanuta madaxadayga ama munaawaraada iyo dhoolla tusada ee qofku intuu waxyaabo soo daalacdo uu ahlulcilmiga ku ifxaaminayo ama uu ku muujinayo isku muujinayo leeyahay ana haahunaa aniga laftigayguna waa ikan uu leeyahay su-aalahaasi weeye kuwa aan maaragtay la diiday ama aan faa'iidaduba ku jirin dee nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam intay su-aali badatay wuxuu ihi ayna abi aabbahay wuu dhintay xagguu joogaa ma jannuu ku jiraa mise naar kolkaasuu nebigu uhi abuuka fi naar aabbahaan naartu ku jiraa dee afkala qaad bay ku noqotay baddaana isagaa galay warwarkiibuu isku badiyey wafii riwaayati limuslimi zaada fii awalihi waxa uu ku kordhiyey khadabanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam sababtu xadiidka ku yimi waxay ahayd nebigaa noo khudbadeeyey faqaala markaasuu nebigu yihi ayuha nnaas dadow qad farada allahu calaykum alxaj ilaahay xajku idinku waajibiyey faxujuu xajka taga oo beytullaahi alxaraamka u qastiya qofkii kari kara faqaala rajulu ninunbaa soo boodoo yidhi akulla caamin ma sanad walba daaqadunbuu ka dhiibay mid deg dega ma sanad walba yaa rasuula allah fasakata markaasuu nebigu aamusay xataa qaalahaa alaaan jeeroo ninkii 3 jeer ku celiyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markaa nebigu waxau ihi low qultu nacam haddaan odhan lahaa haa la wajabat way waajibi lahayd arrintaasi walama staactu manaydaan karteen sanad walba inuu qofku xaj tago macsiya waxa gaf baaba lagu dhici laha uma qaala nebigu waxau uhi daruunii maa taraktukum idaaya anaa idiin sheegaya intaan idinka tegayo macnaha wujuubu lbayaani waqta alxaaja goorta loo baahan yahay wax in la caddeeyo isaga ayaa nebigu uu sheegaya ummadoo xilkaasi saaran yahay isagoo ha qadimina bu baab aliqtisaad fi lmawcida waa aadaabtii aalibka iyo qofka mucalimkaa qofkii wax baranayay iyo kii wax barayay labadaba adaabtoodii baynu axaadiidta saxiixa ku arkaynaa aqoontu ay ku taabagelaysay ajrigana lagu helay can abi waa'il qaala wuxuu uhi kaana cabdullaahi ibnu mascuud imaamkaa weyne asxaabiga faqiiha wuxuu ahaa yudakiru nnaasa kula khamiis fii kulli khamiis khamiis walba dadku waanin jiray muxaadarab soo diyaarsanaya faqaala lahu rajul markaa cabdilaahi nin baa ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadiisi lawadidtu waxaan jeclaaday annaka adigu dakartanaa kulla yowm inaad maalin walba nawaaniso wuu jeclaysta markaa waxa uu leeyahay inaad maalin walba wacdigaan u jeedin lahayd baa wanaagsanaan lahayd qaala markaa cabdilaahi waxau ihi amaa waxa dhab ah innahu arrinku waxa weeye yamnacunii min dalik arrintaa waxa ii diidaya maalin walba inaan muxaadaro idin siiyo iyo wacdi waxa iga hor jooga annii akrahu waxaan anigu nacayaa an umillakum inaan idin daaliyo inaan idin caajisiyo oo uuqicakum fi lmalal macnaheedu markaa waxa weeye dee qofkii markuu shaygu ku bato uu ka xiise dhacaa wa innii atakhawalukum waan idiin kaadkaadinayaa ama idiin gaalgaalayaa oon idiin googoynayaa bilmawcidati waanada cashar iyo cadba waa la yaraystaa bay culimadii hore odhan jiray cadka haddaad inkuusan ku tuurto waad unqaaci oo waad ku margan casharkana waa lagu margadaa sidaas oo kale markaa 5 aayadood iyo 10 aayadood baan u qaadan jirnay bay leeyihiin asxaabtu qur-aanka oo markaasaa la isku dari jiray xifdiga iyo camalka wuu noo kaadkaadin jiray waan idin kaadinayaa buuri waanada kamaa kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam siduu nebiguba u ahaa yatakhawalunaa biha
waanaduu noo kaadkaadin jiray macnaha yatacaahadunaa ama yuslixuna dee wuu nagu wanaajinayaa qofku intaa ay dadku qaadan karaan kolba 10 makhaafata asa'aama isagoo caajis ka cabsanaya calaynaa dushayada markaa cajsi iyo malal iyo xiisa dhac iyo daal isaga oo nebigu diidan makhaafata asa'aamati calayna cafwa halkan waa takhfiifiyo waa asa'aama sumad ma leh saas wey makhaafata asa'aamati labadii hamsaad ee isbedel ibdaal baay markaa wuxuu diidayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu caajisno markuu aad buu uga hadlaa khatiib albaqdaadi aadaabu aalib walmuxadith markaa wuxuu leeyahay xaqu lfaa'idati an tusaaqa liahliha faa'iidadu waxa ku habboon in qof ehel u ah loo qadimo oo haddii aad qof aan faa'iidadaa iska qaban karaynin maanta o dhan ku daldasho foosta gulle baad dhaamistay marka qof waliba intuu qaadi karo ayaa ku habboon inaad u sheegto saa daraaddeed ayaa qofkii jaamacad dhiganaya iyo kii dugsi sare iyo kii dugsi hoose waxaynu ogsoonnahay in dee xiisado kala gooniya xagga wakhtiga iyo maadadaba waa loo kala duwaa taana waxaa keeni karaya qofba sicadiisu ama awooddiisu inta ay tahay ee uu qaadi karo aadaabtii bay taasina ka mid tahay can cikrimata can ibni cabaasin qaala wuxuu ihi xudia xadith innaasa buu leeyahy ibnu cabaas dadka waxaad u warantaa aada waanisaayo ood u xadiistaa kulla jumucatin mara jumco walba hal mar ayaa loo sheegayaa waxay u baahan yihiin caamka dadka caamka ardayda mooyaane fain abayta famaratayn haddaad taa diidana wiiggii 2 jeer wacdi ha la siiyo fain akarta faalaaa miraad haddaad wacdiga u badisa dadka caamadana 3 muxaadaro wiiggii u dhiib walaa tumila annaasa dadka ha ku daalinin haada qur-aankan dadka intood ku badiso iyay ka caajisin ilaa qofku haddii uu shay ka caajiso wuu ka tagaa iminka shayga marka aad aada u xiisaynayso ee uu kugu adkaado waad iskaga tegaysa laakiin haddii sida ugu fiican laguu siiyo waxaad u qaadanaysaa si sahlan ood ku heli karaysa walaakin kunuu rabbaaniyiin marka uu sharxaya ibnu cabaas radia allaahu canhu ayaa waxa uu leeyahy aladiina yurabbuuna annaasa sigaara alcilmi qabla kibaari waa kuwa dadka ku rabaynaya cilmiga intiisa yaryar intaan ka waaweyn la gaadhin masaa'ilka walaa ulfiyanaka yaan kula kulmin buu leeyahay cikrimo ta'ti lqowma inaad qolow timaado wahum fii xadiiin iyagoo war ku jira min xadiiihim sheekooyinkooda ka mid a waxaan kaa waaninayaa laa ulfiyanaka laa ulqiyanaka yaan kula kulmin oo aan kugu helin ta'ti lqowm inaad qolo u imanayso wahum fii xadiiin min xadiiihim iyagoo warkoodii iska wata wararkoodii iyo sheekooyinkooda mid ka mid ah iyagoo iska wata fataqusa calayhim kadibna aad qiso ku bilowdo fataqdacu calayhim waxaad ka goynaysaa xadiiahum warkoodii fatumiluhum markaasaad daalinaysa iska ilaali buuhi dadku hadday sheekooyin wataan ama garbay wataan ama way faqayaan ama baac mushtari bay wataan waxbay ku jiraan u dah ha dhammaystaan cilmiga ha xiisa tirin madaacadda ilaahay qaaliga ah ha macno tirine sheekooyinka ha ku dhex tuurin iyo huhaada dadku warkooda ha dhammaysteen walaakin ansit iska aamus faidaa amaruuka marka ay ku faraan ay u baahdaan cilmigii faxadithum u waran wahum yashtahuuna iyagoo doonaya ayaad u sheegaysa ibn mascuud buu ahaa waxa uu lahaa xadith الnaasa maa ramaquuka biabsaarihim faida اltafatuu fantazic dadku intay si fiican kuu soo eegayaan u jeedii casharka iyo waxaad u dhigayso markayse iska baalladaymoodaan intay iska xoqxoqdaan meesha iskaga kaca way ka dhaceen kolkaa lama haystaan kol hadday kuu jiibin waayaan mid qosla iyo mid dhakada yaro lula iyo laakiin mid lolooda iyo mid hareeraha iska eegeegaya iyo mid xoqanaya waxaa mar hadday noqoto
nuqda halkaa ugu jooji buui wahum yashtahuuna buu leeyay ibnu cabaas iyagoo cilmigii doonaya fandur waxaad eegtaa asajca min adducaa ducada teeda isku toostoosanoo fajtanibu iska dah ducooyinka isku toostoosan ee isku beegbeeganee sajciga leh ee habudhacooda gebagabadu isku wada mid yahay iska dah fainii cahidtu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waasxaabah nebigii asxaabtiisa waxaan ku ogaayoon arkay laa yafcaluuna may samayn jirin ilaa daalika kaas mooyaane kiibuu kuu fasiro wuxuu ihi yacnii laa yafcaluuna may samayn jirin ilaa daalika alijtinaab ka durugaas oo kale way iska dayn jireen macnaha sajciga ducada way iska dayn jireen marka sajcigu dee waa midina waa takaluf baa ku jira midina waa mid dabiiciya oo fasaaxaddii rasuulka sala allahu calayh wasalam waxay keenaysay mararka qaarkood in ducooyinkiisu si sahlan isagoo odhanaya ay isku beegmaan ilaa waxaa la siiyey fasaaxad iyo balaaqad eerii u sarreeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin ta uu qofku isku kalifayo wey ayaa tala diidaya waata baabu kayfiyati dacwati ila allahi tacaala cilmigii waa la bartay adaabtiina la soo arag dacwaddii baa la gaadhayo diintii dadka in loo sheego oo loo gudbiyo ummadda islaamkana meelaha laga soo galay cusuurtan aynu joogno waa jahliga diintooda ay ka jaahil yihiin qofkii oo laga yaabo inuu muddo dheer 20 sano ama 30 sano cilmiga maadigaa baranayay ayaa waxaanu garanaynin faatixada siduu akhri lahaa ama salaadu waxay kaga ansaxaysiyo waxay kaga burayso waana aqoonyahan ayuu sheeganayaa ninkii aad buu isu geejinayaa oo arrinkiisu inuu meel ku tiirsan yahay buu qabaa laakiin cilmigii tajwiidka iyo faatixada wixii lagu saxayay laa yaqra si wanaagsan uma akhriyayo arkaantii shuruudii ma garanayo marka taasoo kale waa jahliga dhibka ku keenay ummadda islaamka jahligaasi wuxuu keenay gaaladu ay ku abaabuleen ummadda islaamka alwalaa walbaraa inuu ka lumo ay garan waayaan waxay isu yihiin yaa nacaba yaa gacala yaa shisheeya yaa sokeeya dadku maxay isu yihiin inay garan waayaan ayaa uu keenay duulimaadkii iyo qaswulfikrigii ayaa waxyaabaha ugu badnaabay ka mid ahayd aqoonta diintooda ay baranayaan ummadda islaamka in laga durkiyo oo goobtaa loo geliyo loogu bedelo aqoonta maadiga inageenani 10 sano ka hoosaynu hayno meen farqi weyn baa u dhaxeeya sidii quraanka loo baran jiray ardayda yartu waxa fidi jirtay dugsiyada carabigiisa u buuxeen carabida sidii loo dhigan jiray iyo xalqadaha cilmi maadiya lagu wada shubmay jaamacadda ay gaarsii iyo ingiriisida ay bar iyo computerkii meeba ka dhacay markaas intii quraanka xafiday ilowday manaahijtii baa loo soo dhigtay intii carabida ahayd la sii barayay oo hay'adihii gaalada ee yunuska ay kow ka ahayd u qaabilsanaa in la tuuro carabiga iyo diinta ayaa halkaa ka soo neefayay iyagu qaxwoodii iyo shaahoodiina sita oo seminaarkiina ku shubaya marka almuhim dadku inay aad u baraarugsanaadaan weey waxa iska macruufa cilmigu intuu xalqada yaala ee maadiya diiniba xalqada laga baranayo funuun kala duwan ummadda islaamku waxay ahayd ummadii riyaadada iyo hogaaminta lahayd caalamka laakiin markii la kala saaray aqoonti ayaa dhibkaas u yimi runtii باب كيفية الدعوة إلى الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أصحابي قونت بدنا رسولك وحا وكيني حين بعثه إلى اليمن مركو يمن الدراي وقت النبي سيدي مني إنك ستأتي قوما أهل كتاب وحادو تجيسا قول كتاب له أهل الكتاب كي كم يضهو أن جاهلين هين الديمي هرا يقام waana muhiim inaad garanayso dadkaad u tegaysa dabeecadooda iyo mustawaha ay gaarsiisan yihiin meeshii ku habboonayd si aad uga dhaqaaqdo fa idaa ji'tahum markaad u tagta fadcuuhum waxaad ugu yeedhaa ummadda ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah shahaadateynka ilaahay inay qiraan keligii nebi maxamedna ay qiraan calayhi salaatu wasalaam fa inhum ataacuuka أطاعوا لك هديك أقبلان بذلك أرنتا فأخبرهم وحد الشيكت أن الله قد فرض عليهم إنه إلهي كواتبية 5 صلوات 5 صلوات في كل يوم والليلة أفري لا تنكي ساعة هذين كي مالنت 5 صلوات بواجب كوا صلاة تاس بواجب ساو النبي عدي عليه الصلاة والسلام فرض كواك كحكسي التوحيد كمرك صلاة
martabadii labaad fainhum adaacuu laka bidalik hadday ka aqbalaan salaada faahbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha qad farada calayhim sadaqa xoolahay hayaan inuu sako ilaahay ku waajibiyey tuukhadu min aghniyaa'ihim maalqabeenkooda laga qaadaya faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaana lagu celinayaa dadkooda baahan waa laysu tarakoobaya sakadu saasay ku miirsan lahayd sakadan la waaye meel ay marayso haddii la tirakoobi lahaa maalqabeenka iyo waxa saka ka go-aysa kadibna fuqarada meeshaa joogtana la tirakoobi lahaa sanadba inbaa laga saari lahaa faqriga khaanada faqriga way sii yaryaraan lahayn sanadaha dambe waxaa la gaari lahaa deegaanka in laga saaro sakadaba oo meel kale loo qaado saasay laysugu celcelin jira laakiin imika waxaa dhacaysa in qofna wax weyn qaato qofna waxba waayo waxaa kaloo dhacaysa qofku wixii uu bixinayba inuu in yaroo ramsiya wax yaruu noqdo oo sakadii wax badan aanu bixinin fainhum adaacuu laka bidalika hadday taa ka aqbalaan faiyaaka waxaan kaaga digayaa wa karaa'ima amwaalihim adiga iyo xoolahooda kuwa wanaagsan baan idiin kala digaya macnaheedu waxa weeye iska ilaali xoolaha inta xulka ah inaad soo qabsato xoolaha waxaa jira qayb la ilaashado waa karaa'im jamcu kariima oo maala neefkii rimanaa iyo tii tabiska ahayd iyo ganiskii iyo awrkii qoodh ahaa iyo korankii iyo neefafkaa halka ugu dambaysa qasnadiiba waxay ka dhigayiin qasnada halkii u dambaysa kuwa ha isku taabanin wataqi waxaad iska ilaalisaa dacwata almadluum qofka laga gardaran yahay habaarkiisa fainahu arrinku waxa uu yahay laysa baynahu wa bayna allah habaarkaa iyo ilaahay uma dhexeeyo xijaabun wax dayre macnaheedu waxa weye qofkaa la dulmiyey marka uu habaartamo horay buu ilaahay ka aqbalaya marka culimmadu waxay leeyihin xadiidkan dee nebigu markuu dad gaalaa buu ka warramayay marka macnaheedu waxa weye gaalada habaarkooda iska ilaal xataa gaalka habaarkiisa baa lagu aqbalaya hadduu madluum yahay oo kow dee ay kaa odhanaysa waayo dadkan uu u dirayey dee dadaan islaam ahayn bay ahay marka iyadoo xadiidku caam yahay ka laftiisu hadduu madluum yahay oo habaartamo habaarkiisi waa loo aqbali baabu tacliimi الnisaa waxbaridda dumarka in iyagiina kaalintooda ay qaataanoo dumarkiina wax la baro hooyadiio wax la baraa waxay keeni doontaa hawl badanoo ubadkaa in laga nasto hooyada markaa aqoonta leh caruurtu ma caamayn karaan bal casharkii akhriya de haddaanay waxba garanayn waxay odhan markiiba waanu dhammaynay intay kaga duruf siiyaan ayay odhanayaan nunu bay odhanaysa ay odhanaya waanu dhammaynay hooya waan qayb waan xafiday tii markaa wax garanaysaa waxay odhanaysaa bal akhri bal hadda fasir tii kalena dee way ugu dhantay wuu dhammeeyey hebel casharkiisii wuu qaybay mabu akhriyin intaasaa u sahlan macnaha can abi saciid jaaءat imra'aة ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam gabadh baa rasuulka u timi faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah dahaba الrijaalu bixadiiثik raggii waxay la tegeen xadiiskaagii macnaha warkii ama cilmigaad ummadda u sheegaysa raggii buu ku kooban yihi fajcal lanaa waxaad noo yeeshaa min nafsika yowma naftaada maalin nasiib na'tiika fiihi yowmkaasaanu kuu iman tucallimunaa waxaadna bari mima callamaka allah wuxuu ilaahay ku baray wax ka mid a faqaala markaa nebigu taladaa iyo soo jeedintaa wanaagsan wuu aqbalay markaa xadiidku wuxuu inoo muujinayaa talada wanaagsana dumarka ka timaada ama madaxda ha siiyaan ama saygooda ha siiyaan ama bulshada ha siiyaana waa la qaadan sidii umusalama iyo sida halkan oo kale aqoontana kaalintooda waa inay galaan dumarku islaamku ma diidana aqoonta ah inkaar qabnimada iyo orodka faasidku gabadhow diidan iyo meel aanay lahayn inay isku qaado oo isqar noqoto laakiin waa ka nebi maxamed le hooyooyinkii iyagii baa soo jeediyey oo waxna bar yoonkoodii buu siinaya wakhtigoodii faqaala markaa nebigu waxa uhi ijtamicna fii yowmi kada wa kada waxa kulantaanoo isku soo ururtaan dumarow maalinka maalin hebel iyo hebel waa maalintii iyo saacaddii ama wakhtigii fii makaani kada wa kada meesha heblaaye iyo heblaayo ballanna labadaasaa u muhiimsan ballan waxaa u muhiimsan wakhtigaa iyo goor iyo meesha ah waa inaynaan iska daynaa ballankeenna dhex wareegaya 6 saacadood caawa haynoo haata buu ku leeyahy berri haynoo haato gelinka hore gelinka dambe halkaasi waxay calaamad u tahay inaan la ballamin bay la mid yusaawi inaan la ballamin mar hadduu ku yihi 6 saacadood baa ballan inoo ah marna kanaa imanaya marna kii kalaa imanaya waan ku waaye waynu isweydaaran intaasay ku dhammaaday wakhtiga soomaalidu marka meel heblaayo saacadda ah saasay wax ku socdaa nebigaa inoogu horseera calayhi salaatu wasalaam
faijtamacna dumarkiibaa isu yimi faataahuna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam uma jaraya nebiguna wuu u yimi facallamahuna wuxuu baray mima callamahu allah wuxuu ilaahay baru wax ka baray uma qaala markaa nebigu waxau yidhi isagoo u bushaaraynaya maa minkuna idinka mid maaha dumarow imra'atun oori tuqadimu horu marinaysa bayna yadayha xaggeeda hore waa aakhiro min waladihaa caruurteedii qadimaysa alaaatan saddex way qadimaysaa macnaha dee way dhimanayaan marka sidii wax qadimatoo si hor u marsatay ayaa ay ka dhigan hooyooyinku waxay yidhaahdaan kuumu heblaaye kaama dhimanine wuu kuu dhintay bay dhahaan manaa aakhiraba waa looga baahan yahy bay dhahan aakhiro ciyaalka ilmaha aakhiraba waa looga bahan yagoo isqancinaya marka tuqadimu bayna yadayha min waladiha alaaa waxay horu marinaysaa oo u shafeecaya saddex caruura ilaa kaana lahaa waxa u sugmaya ilaa kaana lahaa wuxuu u noqonayaa waladkaasi xijaaban min annaar qeyr buu naarta uga noqonaya macnaheedu ma aha daahirka intood qaadato ilmii baa la cadaabaya kolba naarta looga dhigaya waxa weeye sababtiisaa ilaahay kaga badbaadinaya waalidka naarta waa shafaaca faqaalat imra'atu minhun dumarkii mid ka mida baa tiro su-aal isu taagtay yaa rasuul allah markaa su-aalihii dumarku way saasa u weydiinayaan rasuulka si mubaashiroo toosa codkoodiina cawro ma aha adaabtii islaamka ahaydna waa la maraya inayni laba ka waran qaala wuxuu uhi faacaadathaa way ku celisay rasuulka maratayni laba jeer laba ka waran laba ka waran uma qaala markaasaa waxaa uhi wanayni 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 isna tawkiid lafdii ugu samey saddex jeer buu gu celiyey labana waa la mid labana waa la mid labana waa la mid marka qofka haddii laba u shafaaco usii horeeyaan ay u dhinteen waa u shafaaco qaadayaan baabu qabdi lcilm musiibooyinka dhacaya aakhiru zamaanka waxaa ka mid a in cilmiga ummadda laga dhex qaadayo can cabdillaahi bni camr bni caas qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquul ina allaha laa yaqbid lcilm ilaahay cilmiga adduunyada kama qaado intizaacan siibid daraaddeed yantazicuhu uu ka siibaya min alcibaadi addoommaha quluubtooda un iyagoo noolnooloo joogjooga kama siibayo oo madoobaad sidaa kuma qaadayaan walaakin yaqbid alcilma ilaahay cilmiga wuxuu adduunyada kaga qaadayaa biqabdi alculamaa culimadii ayuu qaadaya geeriyoonaya mar kastuu caalim dhinto macnaheedu waxa weeye waaxdii cilmiga uu ku takhasusay ayaa sii socotay qoraalkeedii macnaha fi suduuri wa fi suduur cilmiga qaybtii laabta iyo qaybtuu qori lahaa labaduba xataa idaa lam yubqi caalima markaanu ilaahay caalim quraba daynin bee culimmadu wada dhintaan ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan juhaala dad madaxa oo jaahiliina fa su-iluu waxbaa la weydiinayaa fa aftow way jawaabayaan aftow macnaha iftaagu waa jawaab diimeed jawaab kasta maaha fa aftow jawaab diiniyay bixinayaan bikayri cilmin iyagoon aqoon u lahayn fadalluu way lumeen wa adalluu dadkiina way lumeen bal arag waxaa madaxda muslimiinta in badan oo ka mid ah ilaa man casamahu llah cidda hadlaysa marka diin wax laga weydiiya uu ka jawaabayaa saynisku ka jawaabayaa cerku ka jawaabaya dhulku ka jawaabaya walaa yaquulu laa acrif wuxuu soo horraysiinaya waan aqaana aniga laftigaygu kaa waan aqaanaa waxbaan ka ogahay marka diintuba ma sheegaysa diintu saasay leedahay ilaahay wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi maantao dhan wadaya marka arrinkaa ma garanayo culimada hala weydiiya inta odhanaysa waa naadir marka qofkii inuu wax walba ka jawaabo oo uu iska dhigan inaan mushkiladiisu ay tahay inaanu maaragtay ma odhanin musiibooyinkay ka midta baabu simaaci sagiiri wa tacliimi wuxuu u baab yahay ilmihii yaraayo xadiidkii soo maqla iyo baridiisa ilmaha yar wax la baro ilmihii yaraa in wax la baro wixii uu bartayna wuu soo taxamuli karaa wuu soo qaadi karaa marka xadiidku de waa shaygii loo yaqaanay fii cilmi اlistilaax taxamul اlxadiidi wa ta'diyati xadiidkii oo lasoo qaado iyo iyadii oo lasii gudbiyo oo marka horena xadiidkii baa lasoo qaadaya marka dambena uruq اladaa ama hababkii loo gudbin jiray baa mid ka mid a can maxmuud bni rabiic qaala wuxuu ihi caqaltu min الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebi maxamed waxaan ka kasay oon ka fahmayba majatan tufid biyo uu majahaa tufay fii wejhi wejigayguu biyo intuu cantuugay ku tufay wa ana bnu 5 siniin aniguna 5 jir baan ahaa min dalwin wadaan ayuu ka soo cantuugay wadaan biyo ayuu
wadaantan biyaa la dara ayuu ka soo cantuugay nebigu calayhi salaatu wasalaam kii yaraabuu markaa kaga buufiyey wejiga dhinac waa barakay u tahay candhuufta nebigu calayhi salaatu wasalaam dhinacna waa maaweelintii iyo kafaxintii iyo la ciyaaridii ciyaalka had iyo jeer inay biyaha isku buufiyaan ama isku saydhaan aad bay u jeceliin way ku qosqoslaa marka nebigu ka farxinaya calayhi salaatu wasalaam inankan yar uu la ciyaaraya 5 jir ayuu ficilkii nebiga iyo siduu mudaacabadii iyo ciyaartu ciyaalka la sameynayay 5 jir buu xadiiskan ku soo maqlay faral khamsu liljumhuuri aw fahmu lkhitaab marka uu ka warramayo shaqiiddu waxa uu leeyahay qowlka lagu xisaabtamaya ma 5 jirka ba 7 jirka mise waa inuu hadalka fahmo mise waa inuu mumayis noqdo qowlka raajixa ahi waxa weeye in la yidhaahdo ilmaha yari waxa uu soo qaadayo markuu si fiican u fahmo xadiidka uu soo qaaday waa la aqbali karaya ilaa cuquusha ciyaalku way kala duwan وفي رواية للبخاري من بئر كانت في داره biyaha waxa laga soo daray ceel ku yaalay qolada xaafadooda marka caruurtii yaryar cilmiga ay soo maqleen markay yaraayeen waa la aqbalayaa waa laga sii qaadanayaa ka kaafirin aslam sidii qofkiiba isagoo gaala hadduu soo qaado cilmigii oo isagoo muslima dadka uu gaarsiiyo waa laga aqbalay baabun lam yukhass aalu lbeyti bicilm aalubeytkii waxba laguma gooni yeelin aalubeytka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ammaanadii cilmiga ahayd nebigu waxba kuma gooni yeelin macnaa arrintan cali bn abi aalib radia allahu canhu ka jawaabaya waxa ay soo baxday wakhtiyadii shiicada ibtilaysan ay soo bilaabmayeen ay ka daba dhaceen aalubeytka ama ku xadgudbeen ayaa wararka soo baxaybaa waxaa ka mid ahaa nebigu aalubeytka aqoon buu siiyey aanay ummadda kale ogeyn iyo asraar ayay ogyihiin marka tiibuu caliy bn abi aalib radinaya can caliyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi maa cindanaa kitaabun aalubeytka haddaanna agtayada kitaab ma yaalo naqra'uhu aanu akhriyayno kitaab annaga nagu gooniyo aalubeytka uun ogyihiin ma jiro oon ummadda kale ogeyn ilaa kitaab ullah ilaahay kitaabkiisa qur-aanka mooyaane kaa ummadda u wada siman ogaada buu leeyahy hayra haadihi صaxiifa xaashidan mooyaane xaashi kala baxsan qaala wuxu uhi faأkhrajahaa xaashidii buu soo saaray xaashiduna u gooni maaho ma qarinayo ee waa miduu ummadda gaadhsiinayo faidaa fiihaa xaashida markaa waxa ku sugan ashyaau waxyaabaa ku yaala min aljiraaxaat oo min arshi jiraaxaat macnaha nabarada dhaawacyada la isgaadhsiiyo diyadoodii iyo magahooda ka mid a macnaha jiraaxaadku waa nabarada la ysku dhufto inaga nidhaa quri iyo qoon qudhuna oo qofkii oo la dilo qoontuna nabarada loo geysanayo marka qoomaha magihii ka waajibayay ayaa ku yaala wa asnaani libil iyo geela da'diisa geela magta noqonaya kaasi waa 3 jir kaasi waa 2 jir kaasi waa 4 jir magtii iyo geela la qaadaya da'diisii ayaa ku taalla xaashida qaala wuxuu uhi wafiiha waxa ku yaalla xaashida almadiinatu xaram magaalada madiina waa xaram intee xaram ah maa bayna cayrin ilaa thawr labadaa meelood inta ka dhaxaysa marka cayrna koonfurta madiine buuraha ku gudban weeye thawrkaasina waxa weeye buur yaroo uxud ka dambayso waqooyiga madiine ah thawrkii maka ma aha culimada qaarkood baa mooday taxriifoo xaggii maka iyo madiine inay ruwaadu isku khaldeen mooday laakiin mudaqiqiintu waxay leeyihiin sax weeye buuraan caan ahayn oo uxud ka dambayso thawr laydhaa baa jirtaa marka thawrku waa dhinaca waqooyi cayrna waa buuraha koonfureed marka xadiidku waxa uu tilmaamaya intaas inay xaramta faman axdaa fiiha xadaan qofka balaayo cusub keena aw aawaa muxdian aw aawaa ama ku soo xareeya xaramkaa muxdian mid dhulbi'isa oo dal iyo dad iyo diin kharibaya facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin dushiisa waxaa ahaaday cadhada ilaahay ta malaa'igta ama nacdasha malaa'igta iyo dadkao dhan wixii miyir qabaa nacdalaya nacdashaasuu nebigu dusha uga tuuray xaramkaa cidda xumaan ku samaysa laa yuqbalu minhu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha lagama aqbalayo sarfun walaa cadl sunno iyo faraltoona horaynu usoo sheegnay ereygaasi de inuu laba macno lahaayo altawbatu waalcadlu waalfidyatu inahaasaa lagu fasiray toobad lagama aqbalayo cadliguna waxa wey madax furashana lagama aqbalayo ama sunniyo faral lagama aqbalayo
waman waalaa qowman qofka qolo weli ka dhigtee ku biira bikayri idni mawaaliih dadkii mawlihiisa ahaa ee xoreeyey oo aan maaragtay u ogolaanin ayuu qolo muwaalaad iyo xidhiidh la yeeshay macnaha waa ciddii addoonkaba ka soo qaad mawlade addoonna waa la yidhaahdaa kii kale ee muctiqii iyo catiiqii baa lagu magacaabaya cid buu iskala xidhay bikayri idni mawaaliih kuwii iska lahaa oo aan u ogolaanin facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu yowma alqiyaamati sarfu walaa cadl wadimat lmuslimiina waaxida xadiidku dhinacyo kala duwan baabab kala duwan ayay faqaraadkiisu khusaynayaan arrin siyaasadeed buu nebigu ka hadla wuxu uhi wadimat lmuslimiin muslimiinta magantoodu waaxidatu waa mid keliya oo wax kala waaweyn iyo wax kala yaryar ma laha macnaha qof muslimi hadduu cid magan geliyo waa loo tixgelinaya yascaa bihaa waxa ku soconaya ku howlgelaya adnaahum ka daraj ahaan u hooseeya iyo martabad ahaan haddii daayartoodu cid magan geliyaan waa loo dayn haddii dumarkoodu cid magan geliyaan waa loo dayn hadday fuqaradu cid magan geliyaan waa loo dayn laakiin sida inagu dadka qaarkood ay aaminsan yihiin cidda mudan ama muuqaal kale magantoodu in la tixgeliyo taasi waa qalad muslimiintu waa muslimiin magantooda waa lagu wada xisaabtamayaa buu nebigu leeyahy faman akhfara qofka ku buriya ee ku jabiya musliman qof muslima ciduu magan ahayd oo gaaladaabuu ku xadgudbay facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu yowma alqiyaamati sarfu walaa cadl lagama aqbalayo towbad iyo madax furasho sunno iyo faral lagama aqbalayo marka intaasoo arrimoodba rasuulku saasuu ummadda u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam can abi ufayl qaala su-ila caliyu cali bna abi aalib waxaa la weydiiyey akhasakum rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay miidinku gooni yeelay hadday aalu beyt tihiin bishayin wax diinta ka mid ah miidinku gooni yeelay faqaala wuxuu uhi maa khasanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu nagumuu gooni yeelin bishayin lam yacum shay aanu ummadda ku caam yeelin oo aanu ummadda gaadhsiinin aalu beytka kuma gooni yeelin cilmigu waa ammaana ammaanadii ummadda waa gaadhsiiyey asxaabtuna way uga markhaati kaceen shirweynihii ugu ballaadhnaa ee ummadda uu ku sagootiyey xajat alwadaac maydin soo gaadhsiiyey buui risaaladii maydin soo gaadhsiiyey qad ballaqta wa addayta wa nasaxta iyaguna way ka markhaati kaceen nacam af buuxay ku yidhaahdeen waadna soo gaadhsiisay xilkaagiina waad gudatay yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik ilaahayna amarkaasuu siiyeyo amarkiina wuu fuliyey nebigu kaasuu ka saxeexay bishayin lam yacuma bihi nnaasa dadka wax aanu wada gaadhsiinin kaafatan iyagoo dhan iyaga oo isu dhan waxaanu gaadhsiinin nama soo gaadhsiin ilaa maa shay mooyaane kaana ahaaday fii qiraabi sayfi seeftaydan haadaa kan ah galkeeda qiraabku waa galka seefta warqadan yara ku jirta mooyaane oo wuxuu ku faylgareeyey warqadan intuu laablaabay seefta girgirkeeda galkii seefta ayuu meel yar saa u geliyey si ay halkaa ugu xafidnaato waa faylkiibuu uga dhigay fa akhraja saxiifatan xaashi buu ka soo saaray galkii seefta dhinaca kaga jirta maktuubun fiiha xaashida waxaa ku qoran nebigu ka qoray lacana allaahu alla ha fogeeyo oo ha u cadhoodo ilaahay baa u cadhooday man dabaxa ligayr illaah cid aan ilaahay hayn qofka xoola u gowraca ilan gowracu waa cibaada qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin nusugu waa gowrici walacana allaahu ilaahay baa nacdalay macnaha waa jumlo xagga lafdiga ka ah khabar lakinaha inshaa'iyatu macnan xagga hoostana inshaa iyo dalab bay ka taho habaar walacana allaahu ilaahay baa nacdalay bimacnaa allaha nacdalo man saraqa qofka tuugaysta ee xada manaar alard ijaariyada dhulka iyo calaamadaha dhulku kala leeyi waryaa beeralaydii baa loo soo galay beeraha iyo baloodhada iyo qolyihii xabaalaha rari jiray way dhacday dadka qaarkood inay xabaal rareen xabaal baa u ijaar ahayd isagii hebelka jaarkiisa xabaashiibuu agga ka durkiy oo agga ka durkiya iyadiibuu dhaafi kari waayey gebigeediibuu raray habeenkii dambe markaa dee intii ciiddii iyo dhagaxaantii iyo wixii unbuu fogeeyeyoo muskii ku simay kolkaasuu dee leeyahay xabaashi wataa dee nin caqli badnaabaa yidhi halkan xabaashi maahee
xabaashi way rarantay xabaashi way soo ruqaansatay halkii baa lafii laga helay qolfoofka marka manaaru ard waa calaamadaha dhulka calaa almuraadu calaamaatu xuduudiha hadday beera tahay iyo haddii ay tahay macnaa dhulkii la beerayay iyo dhulkii baloodhada ahaa iyo calaamadii la dhigtay waa qish aada u weyn walacana allahu ilaahay baa nacdalay allaha nacdalo man lacana waalidahu qofka waalidkiisa nacdala si toosa buu ku yihi nacdal baa dushaada ama sabab buu u noqday oo qof buu nacdalo markaasuu qofkii kalena waalidkiisii soo nacdalay walacana allahu allaha nacdalo man aawaa muxditha qof wax kharibaya qofka soo dhoweeya qof kharibaya ummadda islaamka caafimaadkooda midnimadooda nabadgelyadooda oo markaa ku socda xadgudub qofka soo dhoweeya reernimo ku soo dhowaysta ama isku kooxa yihiin ama saaxiibtinimo ama adduunyo ee aan diintii iyo maslaxaddii dalka midnaba eegin nacdal buu dusha uga turay nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeye qofka wax xumaynayaa haddaanu helin cid garab siisa xumaanta kuma dhiirado ee waa zay alkhaliya waxaan bakteriyada la yidhaha ardulkhisba waxay u baahan tahay dhul ay ku noolaato oo cafinahoo quruna bay u baahantay marka haddaanay taa helin khalaas way dhiman lahayd sidaa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamka sidaasuu ugu waaniyey mar walba wixii wanaagsan caliyu bna abi aalibna waxaa caamka ahunba annaga nebigu noo sheegay hanagu daba xiiqina buu leeyay kuwale aalu beytku wax ku gooni yeelayow sidaa ku biyo caba warka saas uu caddeeyey ilaa yowmina haada waa kuwa cali iyo xuseen iyo faadimo la barooranaya dhiigga iska sii daynaya goor horena wuu u jawaabay mana qancayaanoo deeblihiis baa dabada ka wada afkaarta shiicada dad kale allah subxaana wa tacaala